ciidamada badda ee dalka Ingiriiska ayaa waxa ay sheegeen inay qabteen daroogo aad u fara badan oo loo soo waday bariga Afrika. Saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Ingiriiska ayaa sheegay in ay aaminsan yihiin in daroogadaasi loo waday dalal ay ka mid tahay Soomaaliya isla markaana la doonayo in lagu dhibaateeyo shacabka ku nool bariga Afrika. Daroogada ayaa lagu qiyaasay 8.6 bilyan oo Kenyan shilin waxaana lagu qabtay xeebaha badweynta Hindiya iyadoo haatan lagu hayo dalka Kenya. Sida ay sheegeen ciidamada dalka Ingiriiska ee ku sugan badweynta Hindiya, daroogadan ayaa dhan 445 kilogram oo cannabis iyo 260 kilogram oo heroin waxaana lagu waday doonyo. Ciidamada dalka Ingiriiska ee qabtay daroogadaasi ayaa sheegay in aanay hadda magacaabi doonin dadkaasi loo qabtay daroogada iyo meelaha ka soo kala jeedaan maadaama ay ku socoto baadhisi.